kulanti wanaagsan saaxiibayaal soo dhawaada waxaan muuqaalkan ku dul istaagi doonaa xogihii ugu dambeeyey howlgallada ciidamada Puntland ay ka wadaan buuraleyda gobolka Bari iyo xogihii ugu dambeeyey ka soo kordhay tan iyo tabinteeni middan ka horeysay ee howlgalkaasi aan kaga hadalnay waxaan sidoo kale dul istaagi doonaa muuqaalkaasi aad u jeedaan diyaaradaas oo saacadihii la soo dhaafay baraha bulshada qabsaday isla markaana ay soo bandhigeen guddiga taakulaynta howlgalka ciidamada Puntland ee ciribtirka kooxda khawaarijta isla markaana la shaaciyay in diyaaradan ay ka qayb qaadan doonto howlgalkaasi guul weyn u ah ciidanka Puntland iyo shacabkaba ayaan iyadana dul istaagi doonaa wadanka bixiyay diyaaradaasi iyo waxay uga dhigan tahay ama ay qaban doonto iyo waxa ay ku soo kordhin doonto howlgalkaasi sida habsamideeda u socday kooxda Daesh lagula jira buuraleyda gobolka Bari lagaga sifaynayo ee Puntland ku kaligeed ay ku jirto wadanka diyaaradda iyada bixiyayna iyadana waan idinka dabageyn doonaa waxaan dhinaca kale to iyadana dul istaagi doonaa Puntland oo war ka soo saartay howlgalkaasi ay ku jirto kuna eedeysay dowladda federaalka Soomaaliyeed iyo sidoo kale to howlgalka ATMIS in ay go'doomiyeen dhammaan taageeradii beesha caalamka ee la dagaalanka khawaarijta loogu talagalay howlgalkii ATMIS iyo dowladda federaalka is hortaagay oo hor istaag ku sameeyay Puntland dagaalkan cid ka caawinayso kale ma jirin kaligeed baa ku jirta markii laga reebo dowlado saaxiib la ah oo sida dalka isku taga Imaaraadka Carabta iyo Mareykanka iyo markii laga reebo oo de wax badan aan ka soo gaarin Puntland iyada kaligeed baa isku tashatay wadamadii ku taageeraya dowladda federaalka la dagaalanka khawaarijta ee dhaqaalaha badan ku bixinayay waxaa hor istaagay dowladda federaalka iyo ATMIS sida Puntland ay cadaysay war bay ka soo saartay beesha caalamkeena warqad u dirtay oo codsi ah oo arintaas in la dabagalo oo la fiiriyo Puntland lagu garab istaago howlgalkan lagu ciribtirayo kooxda Daesh iyo waliba shabaab ee deegaanada Puntland lagaga ciribtirayo ee sida habsamida loo socdo ayay soo saareen waa dul istaagi doonaa codsigaasi iyo sidoo kale to waxa uu uga dhigan yahay dowladda federaalka naftirkeeda oo run ahaantii ceeb weyn ku ah in maanta lagu eedeeyo la dagaalanka khawaarijta inay siyaasadeynayso oo dhaqaalihiina Puntland ay ka hor istaagtay lagula dagaalami lahaa kooxahaasi iyadoo waliba wax door fiican aan ka qaadan inta howlgalku ay socdeen iyadana mid iyo laba ayaan ka dul istaagi doonaa dhinaca kale to wasiiro hore oo Puntland iyo siyaasiyiin ayaa soo jeedinaya cid walba oo taageerta Somaliland inay la mid tahay qof taageeray kooxda khawaarijta Daesh iyo waxa weeye shabaab qof taageeray inay la mid yihiin talaabo sharciina laga qaado iyadana arintaas oo saacadii la soo dhaafay siyaabo kala duwan loo hadalayo waan dul istaagi doonaa soo dhawaada muuqaalka like saara fogeeya idinkana meel dheer ka tura insha Allah taala aynu ku bilownay maanta diyaaradaas baa la soo bandhigay diyaaradda waa diyaarad helicoptera diyaaradaha qumaatiga u kaca marka kuleey diyaaradda sida markay u tagiso sidaana ay u kacaysa qumaatiga la yiraahdaa meelo ma soo marmaraysa micnaha diyaaradda marka waa diyaarad helicoptera waa diyaarad inta badan ciidamadu ay adeegsadaan Puntland baa maanta heshay laba diyaaradood weeyaan leeyay mid baa hadda la soo bandhigay tu kalena way soo socotaa baa leeyay labada diyaaradood waxay ka qayb qaadan doonaan howlgalka ciribtirka kooxda khawaarijta waxa soo bandhigay guddiga taakulaynta howlgalkaasi buuraleyda gobolka Bari ka socday Puntland ay ku jirtaa soo bandhigay horta guul weyn bay ummadda Soomaaliyeed u tahay gaar ahaan waliba reer Puntland haday noqdaan ciidan iyo shacabba guul weyn bay u tahay dadka dhaawacmo ee buuraha iyo meelaha aysan ambulance gali karin bay tushooda intay ku degto bay ka soo qaadi sababtoo diyaaradan uma baahna jid hawadaas bay mari buurta dhaladeeda ay ku tagi buurta dhaladeeda ay hadana ka kici halka ay taagan tahay intay hawada aadoy kor u kacdo ka fogaato argagaxisada iyo qoryaha ku ridi lahaayeen bay halka ka sii qaadaysaa garoonka Boosaaso ay toos u geeyay ka dajini waa meesha hadda howlgalka waxa weeye laga abaabulaya dhaawacyada laga soo dajinaya laga qaadayo way dawladda dhanayna horeyna ka ku sheegay dawladda dhanayda Puntland waxay degtay Boosaaso si howlgalkan loo taageero loo dhiirigeliyo ciidamada madaxweynihii dhinaaba joogo Boosaaso dhinacna aan uga bixin si kastaba diyaaradaasi maanta Puntland ay heshay laba arrimoodba waa la isku hadlayaa ganacsatada Imaaraadka ka soo iibsay iyo dawladda Imaaraadka bixisay labadaba waa la isku hadlayaa laakiin waxay u badan tahay dawladda Imaaraadku inay bixisay diyaaradaas iyo mid kale to hadda imaan doonto maalmaha inagu soo aadan
ayna puntland ugu deeqeen si markaasi dhaawacyada iyo dadka waxa weeye ciidanka wixii la qaadiyo wixii lasoo qaadiyo wixii lasii qaadiba ay u fududayso oo ay qayb weyn uga qaadato howlgalkaasi buuraleyda gobolka bari ka socda diyaaradda marka horta xaalkeedu waa sidaa saacadii lasoo dhaafay la hadal hayo ee sida weyn loo qaada dhigayo dad baaba siyaabo kaleeta ka dhigayo waxay leeyihiin waxa waa wax laysku dhadhajiyey iyo waa wax meela laga keenay waa diyaaradan oo degaysa uga way arkaan oo rakaab wado oo dad wada bay leeyihiin waa diyaarad saasay leeyihiin si kastaba kuwaa dheg jala qusin mayne waa kooxaha taageeruun kooxda khawaarijta oo kale diyaaraddaas puntland hadda gacanteeday soo gashay qayb weyn bayna ka qaadan doontaa howlgalka ciribtirka kooxda khawaarijta ee buuraleyda gobolka bari lagula jiro sababtoo buurta dhaladeeday ku degi qofka dhaawacmay soo qaadi rasaasay sii qaadi biyahay qaadi shidaal bay qaadi wixii deg degoo loo baahan yahay o dhan baa la saari oo ay qaadi saraakiishaa qaadani meeshay kula degi baada caafimaadka raaci meeshu marka howlgalka waxa weeye qayb muhiim ah oo weliba qayb libaaxa ayay ka qaadan doontaa ilahay ciidankiisana waxaan rajeyneynaa inuu howlgalkaasi guul iyo gobonimo uu kusoo dhammaado dhinaca kaleeto howlgalka weli waa socdaa buuraleyda ayuu ka socdaa meel fiican buuna marayaa walow maanta dagaal dhacay aan lasoo bandhigin oo ciidamadu ay weli ku jiraan isdiyaarin iyo sidoo kaleeto qorshe ila ciidanku waxaa la rabaa maalin walba dagaal lama qaadi karo qurshaa loo baahan yaho qurshaa lagu soconaya marka saraakiishuna shalay way caddeeyeen afhayeenka ciidamaduna waa caddeeyey hawshu markaa si fiican bay u socotaa waxaan rajeynaynaa insha allahu tacaala inuu howlgalkaasi si nabadgelya uu kusoo gabagaboobo dhinaca kaleeto dowladda puntland waxaa laga yaabaa inaad isweydiinayso puntland howlgalkan yaa ka caawinaya wax muuqda oo caawimaada oo puntland hadday noqoto tii dowladda federaalka hadday noqoto howlgalkan aad misee malaayiinta dollar ku qaata argagixisaan la dagaalamayna oo soomaaliya ka xoreynayna hadday noqoto beesha caalamka hadday noqoto wadamada dhaqaalaha ugu badan ku bixiya la dagaalanka khawaarijtaba wax puntland ka caawinayo muuqdo caawimaada oo gaadhay ma jiro hadday noqdaan dhanka daawada hadday noqdaan dhanka saanada ciidanka hadday noqdaan dhan walbaba wax gaadhay ma jiro markii laga reebo dowlado yar oo la tuunsan yahay inay waxba bixiyeen oo ciidamadana markii hore taageeri jiray sida hadda dowladda maraykanka oo kale iyo imaaraadka oo xoogaa waxa weye ciidamadaas maamul goboleedyada xoogaa galaangal ku leh waa suurtagal inay waxay ka helaan aan badnayn laakiin wax hadda muuqda war iyo xaal ma jiro puntland war bay ka soo saartay waxa ayna warkooda kaga codsadeen beesha caalamka in puntland lagu garab istaago dagaalkaasi ciribtirka kooxda khawaarijta waxay sidoo kaleeto puntland ay caddaysay arrinta ama dhahne doorka dowladda federaalka iyo howlgalkaasi admis ay ku leeyihiin waxay ku eedeeyeen oo puntland ay ku eedeynaysa ay caddaysay oo aysan qarinin in dowladda federaalka iyo howlgalkaasi admis cid walba oo puntland ka taageeri lahayd dagaalkaasi buuraleyda gobolka bari iyagu ay ishortaageen oo ay hor joogsadeen horeyna waa idiin sheego waxayna yidhi xasan dagaalkii wejigii koowaad iyo wejigii labaad iyo kii saddexaadba malaayiinta dollar oo ku qaatay iyo hubkaba uu ku qaatay waxba waa ka qaban waayo uu fashilmay maadaama kii hore marka uu fashilmay wuxuu rabaa deni siduu ku fashilin lahaa howlgalka puntland ay ku jirto sababto isagaa ceeboobi haddii puntland howlgalkan keligeed ay ka takhalusto oo maalmo weliba asbuucyo kooban ay kaga takhalusto iyagoo weliba lacag lagu siinin xasan ceeb buu meel banaan cid u fadhiisan hadduu ceebaysan yahay laakiin waa ceeboobi wuxuu diidayaa marka mashruucan lacagaha isagu ku qaadanaya malaayiinta inay kasoo xidhmaan buu diidayaa wuxuu diidayaa in la yidhaahdo xasan oo adigoo ciidankii dowladda watiya maamul goboleed oo dhan kula shaqaynayo ayaa qaban weyday laba gobol oo keliya aad xoreey weyday ilaan dagaalku wuxuu ka socday labada gobol ee reerkooda ay degaan meel kaloo dagaal lagu qaaday ma jiro waa shabeellada dhexe iyo gobolka galgaduud labada gobol ee reerkooda isaga reerkooda ay degaan weye ciidankii dowladda soomaaliyeed oo dhan baa la iskugu geeyey hubkii oo dhan baa la iskugu geeyey dhaqaale malaayiina lagu qaatay diyaaradaa la qaatay wax walbaa la sameeyey dowlad oo dhan baa soo istaagay dowladii o dhan baa soo istaagay o dhaqaala bixinaynaa yidhi haddanana taaka waa la xoreyn waaye degmooyin dhowra la qabtay kadibna haddana ciidankii soo baneeyaalayo ka soo baxa si mashruuc uusan u afjarmin marka xasan ceebtaasuu ka cararayaa danina waad aragtaanoo muddo asbuuc gudaheedu buurihii oo dhan ka dagaaldegay oo kooxdii la baacsanaya oo saas waxa weeye la cayrsanaya oo meelo ku dhumaalaysanayaan marka xasan isagoo taa ka duulayay inuusan mashruucanna ka dhammaanin ceebtiisana banaanka usoo bixin oo arrintan aysan ifteeminin wuxuu rabaa marka inuu fashiliyo dagaalka puntland ay qaaday inuu fashiliyuu rabaa marka puntland iyadoo marka aragta hanaanka uu xasan doonayo iyo qorshayaasha fashilinta u wado ayay beesha caalamka warqad u tuurtay codsi baa loo dira waxaa la yidhi dowladdii federaalka iyo howlgalkii admis
dagaalkaas puntlandku keli bay ka dhigeen, way go'doomiyeen, xataa dowladihii taageeri lahay oo dhan bay ka hor istaageen. waxaan codsanaynaa sida ugu dhaqsiyaha badan in lasoo garab istaago puntland oo weliba lasoo farageliyo dhaqaalaha malaayiinta ee adduunka ugu talagalay ciribtirka kooxaha xagjiriinta ee soomaaliya ka dagaalama inay puntland qeybteeda sida ugu dhaqsiyaha badan loo fasaxaan codsanaynaa bay dheheen. waa gar marka waa gar waan ogahay horta kuwaa kasoo jawaabi doono xasan sheekh maxamuud u daba dhaqoo dhihi doona puntland baa waxa weeye waa wuxuu saciidani wuu gaajooday wuu baahday waa kan way dhihi doonaan, weligoodba way lahaayeen. laakiin waa wuxuu xaq u leeyahay, waa wuxuu madaxweynaha u yahay inuu beesha caalamka usoo bandhigo, uusan qarinin xaaladda siyaasadeed ee dalka. waa muhiim inuu caddeeyo qorshaha xasan sheekh maxamuud ee kooxdan la shaqaynteeda in la caddeeyo waa muhiim weye. sababtoo haddii dhaqaalihii lagaa xayirto micnaheedu waxaa weeye dhaqaalahaad ku dagaalami lahayd kooxda kula dagaalami lahayd lagaa xayiro, micnaheeda waxaa weeye waan la shaqaynaa, waan la shaqeeyaa wey, wax kaleeto ay tahay ma jiro. marka waa la shaqeeyaa, cid laga yeelayaay ma jiro, waa la iska celin, waa la hadli, waa la sheegi. puntland haddii xataa la waayana dhibaato male, dagaalkuna waa soconaya. dadka reer puntlandna dal iyo dibadba, mucaarad iyo muxaafidba waxay ka midaysan yihiin sidii kooxahaasi muddo kooban looga sifayn lahaa deegaanada puntland. waa laga wada midaysan yahay. mar haddii marka mawqifka laga wada midaysan yahay oo la isku raacsan yahay, puntland gabdhaha dahabka usoo gali, ciidanka markeed wax kale la waayo gabdhaha puntland baa dahabka soo gali, dhagahooday furayaan, way iibinayaan, waa la isku soo dardari, waana ku filantao waa lagu xorayn, waa ku filanta. reer guraaguna arig iyo geelay u qalayaan, wax loo baahan yahay marka ma jiro. marka waxaan leeyahay haddii dowladda federaalku muuqaalkan uu gaadho ama cid kale oo la hadli kartaba uu gaadho, bixiya lacagahaas mashaariicaha waaweyn ee loogu talagalay la dagaalanka khawaarijta fasaxa. haddaad fasixi weydaan habeen iyo maalinna halkan aynaga garaacaynaa oo aan ceebtiin iyo waxa weye wixiina ka sheekaynaynaa. dagaalkaana insha allahu guul buu kusoo dhammaan. dadka reer puntlandna dar iyo dibad meelay joogaanba say iskugu tashadeen bay noqon, idinkana ha dhowto ceeb siyaasadeed baynu u noqon. dalkanna sidaasaa lagu kala tegi oo laysku soo noqon maayo, layskuma soo noqonayo. waa haddii waxa weeye aad qorshahan aad ku socotaan wax ka bedeli weydaan weye. taasaan leeyahay shacabka puntland, waxaan leeyahay hays dhiganina. federaal wax badan kama soo socdo, beel caalamna xasan baa hortaagane, wixii inooga imaan ha inooga imaada, laakiin yaan lagu tashanin howlgalka ha la wado. insha allahu tacaala guul iyo gobonimo ayaana idiin rajaynaya.